Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, welcome to Language College Hargeysa. Waxaan la hadlayaa waa macallin warsame. Maanta waxaan nii wadnaa grammar structure. Correct the following sentence wax la yidhaahdaan wadnaa. Jumladda soo socota hagaajiya. Arday badan waxay isweydiiyaan macallin jumladda seen u sameynaa, macallin sideen jumladda u abuurnaa, macallin jumladda seen isku dhex gelinaa. Su'aalahaasay na weydiiyaan ardayda inta badan intaan casharkan u dhigayno. Marka basically maanta waxaan nii wadnaa mid jumladda habka aad u sameynaysaan inaga caawinaysa. We have today a lesson based on a sentence, correcting the following sentence. Marka waa grammar structure. Saynu wada ogsoonaa grammarka maaha hadalka uun balse wuxuu ku xidhan yahay qoraalka. Writing, grammar, speaking, grammar, and so on. Marka my dear students, saan hore nigu sheegay, my name is Teacher Warsame. I am one of the teachers in Language College Hargeysa. And horta magaciina ha iloobina. Do not forget to write your name marka koowaad. Do not forget to share and do not forget to comment. Comment-kana ha ka ilaawina. Casharka waxaad ka qabtidna ka soo dhigo and waxaad ka fahantayna ka soo sheeg. This is very very important. Waana cashar muhiima runtii waynu u baahannahay jumladaha saan u sameyno. Marka ardayda waxaan ku leeyahay marka first of all welcome. Soo dhawaadan leeyahay. Do not forget to tell us where you are. Xagga joogtid noo sheega. meesha aad ka soo hadlaysid hadda live-ka iga daawanaysa anigoo macallin warsamana ii sheeg magacaagana ii sheeg and basically aan is yar barano my dear students Firdawsa ila hadlaysa waxay ku tiri hey everyone and hey teacher hey Firdawsa how are you and Farah Mohammed baa isla hadlay assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh my dear students welcome Saeed Shine thanks Saeed Shine and my dear students my dear teacher my dear students inikum waa mahadsantiin aad iyo aad baad mahadsantiin sharafta badan leh marka basically saan hore nigu sheegay ardaydu maxay raadiyeen inta badan waxay raadiyeen sida jumladda u sameyn lahaayeen so they can write to their managers and write a CV and so on marka xaggan waxaynu ku haynaa 1 2 3 4 5 baynu ku haynaa 5 sentences these are sentences what jumlad Soomaali waxa lagu yiraahdaa jumlad baa lagu yiraahdaa sentence jumlad way khaldan yihiin they are totally wrong horta way khaldan yihiin sidoodaba way khaldan yihiin marka koowaad yaynaan moodin inay saxsan yihiin way khaldan yihiin casharka aan yar sharaxo marka mid walba khalad baa ku jira amba kelmad baynu ka saariyay meesha oo laga saarayaa kelmadda amba kelmad baynu ku soo daraynaa amba maxaynu sameynaa waan isdhaafinaynaa wixii isdhaafsan marka waxa weeyaan waa rearrange-na waa loo yaqaanaa dib u hagaajin range-na waa loo yaqaanaa itixaamada inaad ku aragteen mooyaane marka Englishka laga qaado ardayda waxa lagu yiraahdaa the following sentence are incorrect so necessary sida ugu dhow in uga shaqeeya rearrange the sentence marka insha Allah arday marka koowaad do not forget to tell us where you are ha iloobin inaad ii sheegtid meesha aad joogtid Hassan Ruhali and I am from Garowe mashallah Garowe is a nice place Mohammed Ahmed so do my dear students Dubai Farah Mohammed raalli noqo Farah Mohammed wuxuu yidhi Dubai thank you very much Dubai must be hot at this kind of time mise waa caadi ma kulayl ba mise waa yara caadi xilligan I am from Germany mashallah Abdulrasaaq Dhamme wuxuu yidhi I am from Germany I am from Germany welcome my dear student from Germany soo dhawaada Hamza Mohammed wuxuu yidhi assalaamu calaykum waa Hamza Mohammed oo Hargeysa jooga mashallah Hamza maanta Hargeysa nala jooga today how was the weatherka Hargeysa ka warama it was cloudy it wasn't foggy but it was raining shower raining by Manta and roob badan waxa daayay yaro shower rain baa loo yaqaanaa Hussein Umar wuxuu yidhi where are you from me I'm from Hargeysa I live in Hargeysa that's where I am from my dear students and Fatima waxay tiri from Laascaanood Fatima welcome Laascaanood soo dhawow Ibn Saleh Farah wuxuu yidhi hello teacher hello too baan ku leeyahay soo dhawow my dear students horta dhammaantiin soo wada dhawaada good evening baan leeyahay galab wanaagsan dhammaan ardayda sharafta badan Xasan Garaad oo jooga Burco masha Allah soo dhawow my dear students dhammaantiin welcome to Language College Hargeysa and live-ka casharka maanta waxaan idin marinay macallin warsame saan hore nigu sheegay casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay grammar structure wax la yiraahdo correct the following sentence waxa lagu jumladan soo socota the following soo socda sentence jumladahan hagaaji waa lagu way khaldan yihiin correct them ininka la rabaa inaad hagaajisaan aniga maaha anigu waan ila eegayaa I am just going to when inoo dul marayaan waan ii sheegayaa habkaad u hagaajinaysaan iyo the easiest way
laakiin waxaan rabaa ardayda inaad soo hagaajisaan soo markaad sida kusoo hagaajisaan commentkaad kusoo qoraysaan aniguna waan akhrisanayaa commentka kusoo qora markaan comment kusoo qorto maasha allah waxaa kan ilaahay professor Ismail Maxamed Ali I am in Gabiley buu maasha allah Gabiley maasha allah soo dhawaad my student Khalidinho wuxuu yiri I am from Muqdisho maasha allah Huda I am from Hargeysa Farxiyo qalinle waxay tiri I am from Sweden maasha allah dhamaantood wada salaamay ardayda Sweden Germany Hargeysa Burco Muqdisho Gabiley meel walba jooga waan wada salaamay dhamaantiin kuwa garowe jooga dhamaantiin ardayda Djibouti joogta maasha allah Sakina waxay tiri Djibouti waa meel wanaagsan I like it good evening all my dear students and haddaba waxaan wayniyo dul maraya waxa lagu yiri correct the following waxaad saxdaan kelmadahan soo socda following soo socda sentence oo ah kuwan what waa maxay is iyadu she name what is she name xagan khalad weyn baa ku jira there is a big error waa loo yaqaana khaladka kale xitaa what is she name waa khalad marka ardayda balan isku yardayna midka koowaad the first one baan isku eegnaa marka xagan casaan yar baan soo saarinaa midda koowaad marka arday waxaan rabaa inaad midda koowaad isla yar eegno marka midda koowaad arday maxaad qorteen waxaad soo qorteen baan eegnaa what is her name Yasin wuxuu yiri what is her name Raqiya Said waxay tiri what is she name maya Raqiya what is she name maaha she is tibas dhaafis adigu maaha ha isdaafin waxa ugu dhow ardayga la yiraahdo Yasin oo iminka hadda isheeda ku dhacday masha Allah Mustafa Hassan Farah wuxuu yiri I am watching from Canada where in Canada in Toronto where are you Ottawa where are you watching us from masha Allah madistan ma Ottawa ma Toronto xageed naga daawanaysa talo Assalamu alaikum teacher I am from Middle Shabelle masha Allah Middle Shabelle is a nice place as well and I am from Djibouti with Abdurrahman Gosar so dhawo my day student and ardayga kale Soomaali kufaan wuxuu yiri what is she name maya waa khalad what is she name waa maha waa khalad taasina what is her name and ardayga la yiraahdo Mustafa Hassan Farah wuxuu yiri what is her name waa maxay magaceedu taasa u yiri dhow marka ardayda kale aan yara eegnaa san hore inagu sheegay kelmadda waad ka saari kartaan basically imika kelmaddaas oo kale waad ka qaadi kartaan meesha haddaad rabtaan kelmaddaas aad bedeli kartaan oo kelmad kale ku bedeli kartaan tay doontaba haato laakiin ardayda waxaa la rabaa inaad iniku soo qortaan commentka ku soo qora basically inta ugu badan ayaan isla qaadanaa Mukhtar Sulb wuxuu yiri what is her name okay Farah Maxamed wuxuu yiri what is her name okay already waxaan hayaa ku dhawaan 10 arday oo yiri what is her name Yusuf and Philippine wuxuu yiri what is her name masha Allah what is her name maskaxda wanaagsan si fiican bay u fikirtaa baa la yiri ardaydu si fiican bay u fikirtay midda koobaad waxa weeyaan what is her name waa maxay iyada magaceedu what is her name she waa isla iyadii laakiin waxa ku soo baxay her waa grammar structure baa la doonayaa her weeyaan what is her name iyada magaceedu waa maxay what is her name is magaceedu waa sheegaysaa markaa her name is Nadwa masha Allah ana batri her name is Nadwa masha Allah that's a nice name Nadwa xageetan kanta anabi magac wanaagsan weeyaan what is she name batri Firdausa maaha Firdausa what she is name labadan baa isweydaarisay may maaha totally tanaan ka saarnaa meesha sheeda he waxaan ku badalaynaa her baan ku badalaynaa sheeda her baan ku badalaynaa sida his iyo him aynu kala yiraahnaba masha Allah arday inta badan waxaan isku raacnay amba waxaan isla garanay inay tahay her what is her name midda labaad where you from inta badan waan isweydiinaa su'aashan waa su'aal aan inta badan isweydiino xageed ka timid baan anaa Soomaali maxaa la yiraahdaa xageed ka timid bal English maxay ku noqonaysaa xageed ka timid where you from maaha xageed ka timid maaha English where you from xagan waxbaa ka qaldan xagan waxbaa ka maqan ba where you from maxaa ka maqan talo kelmadda ka maqan noo soo sheegay arday masha Allah my dear student aad baad mahadsantiin what is her name where are you from Budi and Dahabo waxay tiri where are you from and I have a large family Dahabo intii way ka soo shaqaysay masha Allah aad baad mahadsantahay Cabdirashiid wuxuu yiri what is her name taa waan isla garanay and arday midda kale xasuusiyo ardaydu way farbadan
ardayda aan arki waayo amba aan qoraalkooga akhrin kari waayo basically hadhow tolan akhrin doona aad iyo aad baad u mahadsantihiin muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan tijaabada isku tijaabiseen the most important part is try it isku eegaysaan amba istijaabinaysaan inaad saxday amba aad khaladay ayaad ku wanaagsantihiin aad baan igu mahad celinaya horta midda haddaan iniga arki waayena amba aan qoraalkiina ina akhrin waayena iga raali ahaada baan leeyahay dhammaan ardayda sharafta badan leh and where are you from daahir cabdi wuxuu qoray where are you the caadi u qoray you-dan marka aad qoraysid writing-ka you-da un lama qoro it is not correct haddaad you-daasoo keliya qortid writing-ku you way tahay laakiin way khaldan tahay cv-gaaga lagaa aqbali maayo maxaa ku dhaha manager letter haddaad managerka waraaq u qoraysa ama wasiirad u qoraysa ama dowladda u qoraysa lagaa aqbali maayo you-daasi marka waa inaad si fiican u qorta my day student gaar ahaan waxaan u sheegayaa daahir cabdi nuur wuxuu soo qoray where are you from you-daasoo keliya qorin waxaad doonayad qortid where are you from adigu xageed ka timid where are you from midaan waan isla garanay where are you from adigu xageed ka timid haddaba my dear students where are you from xageed ka timaadan inigu where are you from I'm from Hargeysa some of my students are from Djibouti Garowe and Shabeellaha Dhexe Germany Canada and so on my dear students Sweden baa xitaa qaar marka maasha allah wasnaqaana aad baad mahadsantihiin ardayda sharafta badan leh middan baa ku xigtaa the third one the first one the second one and the third one waxaynu maraynaa kii saddexaad baanu maraynaa insha allah laba kalaa noo hadhay casharkan wax badan bay noo hadhay weli marka the third one I have family large maxaa ka maqan meesha talo ardayda maxaa ka maqan meesha waxbaa ka maqane I am from Burco Bakari masha allah isaaq waan ku salaamay my dear student firdaws waxay tahay I have large family waan garanay I have large family laakiin firdaws waxbaa meesha ka maqan there is something missing there is a grammar error waxbaa khaldan meesha marka wixii khaldan waa in la hagaajiya I have family large waxbaa meesha ka maqan waa la fahmaya waxa loo jeedo muhiimaddu waa la fahmaya waxa loo jeedo lama diidaya taa we do understand what you mean but you have to write it correctly in able for you to understand correctly sida lagu fahmo si toosan waa inaad saxda waxaad qortay marka maxaan qornay I have family large waa khalad saan hore inagu sheegay waa khalad bal ardayay aan isla saxno I have family large I have maxaad talo qorteen arday aanu yar eegno waxaad qorteen insha allah cabdilshi wuxuu I have large family I have a large family masha allah and Suad aadan waxay tiri I am from Australia masha allah my dear student welcome to Language College Hargeysa and nice to meet you my dear student and Goshka wuxuu yiri I am from Boroma masha allah Boroma okay masha allah I come from Sweden masha allah deeqan ku salaamay su'aashan deedayna I have large family the rock Isa wuxuu yiri have a large family waa khalad waxa adiguna tabti aan qornin baad u qortay waad naga daba khaldantay may ardayda wax la rabanayaa saxan ay soo qoraan I have large family abdi wuxuu yiri I have large family waa khalad adiguna waa khaldantahay I have a large family Mustafa Hassan Farah wuxuu yiri I have a large family ardaygaas markii horena uu saxay alxamdulillah khalad yar buu lahaa waa kiis ka soo saxay khaladkiisi iminkana waa ka saxay I have a large family buu yiri masha allah thank you very much and himka adi waxay tiri where are you from taas waa khalad himka dib ugu yar noqo Yusuf Philippine wuxuu yiri I have a large family okay masha allah taas waa saxsantahay that is really good alhamdulillah ardayda sharafta badan leh masha allah nice to hear from you and aad iyo aad u mahadsantihiin inaga soo maqlo ininka and as I said before and ardaydu waxay inta badan raadiyaan su'aalaha aniga macallin ahaan ay ardaydu weydiiyaan waxay weeyaan macallin jumlada seen u sameeyna how could we make sentence how could we build our own sentence building our own sentence seen u sameeyna building our own sentence these are one of the exercise before you build a sentence you need to make some exercise you need to learn how to build it so marka these are one of the things that you can build your own sentence by making incorrect sentence and then rearranging it and then correcting them that's how you can make it that is the easiest way that you can make it and also using lots of vocabulary badan adigoo isticmaalaya ayaad baran kartaa oo waxaad ku baran kartaa kelmadaha vocabulary-ga maalintii haddii aad 10 mid amba 20 mid amba 40 mid oo vocabulary aad soo urursataan iga raali ahaada oo soo urursataan
oo isku keentaan oo kelmaddaasi baratid waxay tahay macnaha sheegayso iyo habkay iyo waxay tilmaamaysaa iyo goorta la isticmaali karo aad ogaatid ayaad isku keeni kartaa san u wada ogsoonay af Soomaaliga laftiisu waa kelmado la isku keenay isaga laftiisu waan ku hadlaynaa oo si fiican wanaga u hadalno waayo ah kelmadii vocabulary habaynu xafidsannahay Soomaa kelmadii vocabulary markan la weydiiyo xageed ka til maxaynu yiraahnaa automatic maxaynu ku jawaabnaa xaga iyo xagaasan ka English marka lagu weydiiyo waa inaad saa tiraahdo where are you from hadii lagu yiraahdo I am from Canada I am from Hargeysa I am from Mogadishu saasaad oranaysaa inshallah my dear students that's how you build your sentence arday sharafta badan horta dhamaantiin waad mahadsantiin and once again Halima Yasin Bulsho waad mahadsantahay for actually giving that reaction you gave us a nice reaction aad baad mahadsantahay and Farhiya qalilna waxay tiri I have a large family middan waan isla garanay waxa ka maqnayd meesha I have a large family ba xagan tagaysid large ba soo horeynaysa ayna waa lagu daray I have a large and then family aad iyo aad baad mahadsantiin arday sharafta badan leh ha iloobina inaad comment ka bixisaan casharka aad ka jawaabtaan and also the most important part is sharing the lessons sida dadkeena kale u gaadho casharka ay nooga faa'iideystaan saad arkaysaan casharka intiisa badan Soomaali baan ku macnaynaynaa taasoo ah dadkeena Soomaalida ah siday u fahmaan casharka muhiimadda ugu weyn oo ka wadna waa midda siday u fahantaan luqadan foreign language ka this is a foreign language for us and so marka ardayda sababtan af Soomaaliga ugu macnayna waa midda qaybtan casharadan oo fara badan dhigan doonaa insha Allah mustaqbalka soo socda haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah biidnillah midda afraad waxa weeyaan midda afraad baan yaqaanay marka koowaad I not from Kenya I not from Kenya this is a possessive pronoun like maxaa laga jeedaa I valid waxba ka maqan ID I not from Kenya I not from Kenya wadi fahmaysa markaan ku idhaahdo I not from Kenya ardayga markaan ku idhaahdo I not from Kenya uu fahmaya laakiin wuxuu og yahay uu fahmay fahankii la iskuma hayo laakiin wuxuu og yahay waxba ka maqan meesha khalad baa jira buu oranaya qofkan af Ingiriiska si fiican uma yaqaano waayo waxbuu ka tagay maxaanu ka tagnay talo arday banaanu eegno ardayda waxaanu ka tagnay Abdulrahman Abdullahi I am not from Kenya horta thank you very much thumbs up on ku tagay sulka and ay Abdi Bulale wuxuu yiri I am not from Kenya mashallah maxaa ka maqnaa meesha I am ba ka maqnaa aniga tilmaamaysa I waa aniga am and possessive pronouns ka sheegaysa I am aniga not from Kenya anigu kama iman Kenya anigu kamaan iman Kenya I am not from Kenya marka waxa weyn su'aasha and sentence kan su'aasheedii if this was the answer what was the question would be where are you from Kenya hadday tahay tani I am not from Kenya su'aasheedii maxay noqonaysaa la weydiiyay tan waa jawaabtii su'aasha maxay noqonaysaa and you are from Kenya muxuu yiri marka I'm not from Kenya anigu kamaan iman Kenya you are looking for the wrong person Abdul Samad Salaiban today is a very very good mashallah ha aad baad maasantay today is very very good buu yiri sentence ka dhamaystir I am not from Kenya Mahad Abdi Yusuf aad baad maasantay aad baad arday sharafta badan leh u mahadsantiin dhammaan arday sharafta badan leh I have a big respect for you horta and marka koodan mahadsantiisaan hore nigu sheegay casharka inaad sheegaraysaan baa muhiimaddu ay tahay do not forget to share the lesson comment and so on and marka midii ugu dambeysay inuu gali doonaa laakiin insha Allah in yar ka hor inteenan galin waxaan doonayaa ardayda inaan u sheego and the easiest way that you can basically build a sentence is using different kind of vocabularies and making your own imagination and so on waxa jirta hadii aad adigaagan aad record garaysid codkaaga adigoo isla hadlaya amba Englishka jijibinaya deetana marka dambe intaad soo qaadid qalin codkii markaad ka duubtay aad qortid wixii aad khaladay maxaad samayn kartaa you could correct this following you could correct not the following but you could correct the sentence that you were akhrinaysa adigaagan akhriskeeda akhrinaysa baad saxi kartaa maxaad samaynaysaa mobilka smartphone-kaada haysatid baa iska duubaysaa waad hadlaysaa hal mar marka hadashid waad joojinaysaa recording-taadii waad dhegaysanaysaa wixii kaa khaldanaa baad qoraysaa qalin iyo buug baad soo qaadaysaa waad qoraysaa ma qortay maxaad eegaysaa waxaad eegaysaa the incorrect sentence kalmadihii kaa khaldanaa baad eegaysaa maxaad samaynaysaa marka rearrange wax la yidhahda ku samaysaa dib u habeyn baad ku samaysaa dib u hagaajin markaad ku samaysidna maxaa imanaya wixii baad saxday adigaagii iskhalday baa isa saxay markaad isa saxdayna de maxaa ka fiican qof isagiisa intuu khaldamay
dib isagiisa isku saxayntuuna qof kale saxin alxamdulilah taas ugu wanaagsan marka arday waxay naga codsanayaa inaad taas samaysaan midda haddaad iga qaadan kartaan try it and if it works for you alxamdulilah if not we could try many other ways siyaabo kale oon isku dayi karnoo jirta and almaz umu xanaan waxay tiri I am not from Kenya exactly midda waan isla garanay I am not from Kenya Princess Farhi waxay tiri this photo is this photos bay tiri possessive pronouns bay ka dhigtay xaggaas lahaansha this photos bay tiri and I think there's a big mistake over there xagga khalad baa kaaga jira nasteexo saciid wacalaykum asalaam my dear student kusoo dhawo language college hargeysa kusoo dhawo casharka talada waa laisla leeyahay arday ma fahanteen marka we actually as language college hargeysa macallimiinta dhammaan waxay jecel yihiin inay mar walba waxaan live ka usoo galna haddii carabi tahay iyo haddii english tahay inaad naga faa'iidaan anaga the most important part waxa weeyaan in la iska faa'iido oo correctionka iyo waxyaalahan ay dadkeenu u baahan yihiin aanu ka saxno communityga that is the most important part muhiimadda ugu weyn waa inta aanu ka leenahay marka arday grammar structure buu ahaa casharkeenu correct the following sentence arday waxay jirta hadda soo gashay alxamdulilah iyo ardaydii horeba laakiin casharkeenu waana sii wadaynaa su-aashii ugu dambeysay the last question su-aashii ugu dambeysay dhammaan ardayda waan wada salaamaya do not forget to share inaad sheegaraysaan hiloobina like garaysaan comment garaysaan oo casharka aad ka hadashaan alxamdulilah ilaahay mahadii tahay this is a photo my family this kani is waxa weeyaan a qodob consonant photo my family kani waa sawir reerkayaga kani waa sawir reerkayaga kani midkani waa sawir reerkayaga laakiin waxba meesha ka maqan waxba ka saari mayno laakiin waxba ka maqan this is a photo xagaasi wax ka maqan yihiin weliba bartaas wax ka maqan yihiin my family marka ardayay maxaa ka maqan meeshaan isla yar eegno this is my family photo maaha this is a photo of my family thumbs up gacantan ku taagay cabdullah xakiim ibnu cali aad baad u mahadsantahay thank you very much waa isku dayday waana saxday alxamdulilah ilaahay mahadii ay tahay sixitaanka ilaah baa cilmiga haya ilaah baana qalinka haya this is a photo of my family kani waa sawir ka mid ah of maxay tilmaamdaa unbreakable connection bay tilmaamtaa laba of baa jira mid o double f iyo mid o f marka tan o f tan aan isticmaalina maxay weeye xiriir bay samaynaysaa is going to make a connection between the photo and the family this is a photo of my family his family is his family but the photo is his family the photo is his family isagii iyo reerkaba waxa iskale de photoga sawirka waxa iskale reerka iskale aad baad mahadsantahay waxaa tiri nasteexo saciid casharka umaad soo qortay fadlan bal isku yarada inaad casharka ka qayb qaataan arday sharafta badan leh of xamse rirash wuxuu soo qoray off basically off bay ahayd off baa meesha ka maqan laakiin ardayda qaar waxay yidhahdaan o double f mid waa unbreakable connection midna waa breakable connection mid way kala jebisaa waa ta loo isticmaalo marka aad telefoonkaagu dansan yahay my mobile is off my internet connection is off maxaad oranaysaa the line is off waa marka aad leedahay waxba ka maqan meesha the light is off laakiin marka aad doonaysid inaad xiriir ku samaysid jumladan hore aad ku xiriirisid something else we say this is a map of Great Britain this is a map of Great Britain marka a map of Great Britain and unbreakable connection the map of Great Britain tanna waa sidaas oo kale this is a photo of my family kani waa sawir reerkayaga my family waliba possessive pronoun buu ka dhigay lahaansho reerka inuu reerkiisii yahay amba waxa weeyaan familigiisii amba waa reerkooda oo mothertiiba ku jirta halba ku jirta xaga aad baad mahadsantiin ardayda this is a photo of my family saciid off baad isticmaashay maasha allah Sakariya Maxamed waan iska dhaafnaa ardaygaasi this is a photo of my family kani waa photo of my family baa tiri maasha allah aad baad mahadsantahay ardayda sharafta badan leh what is she name laga wadaa maasha allah saasa laga wadaa ardayga sharafta badan leh this is a photo of my family okay grammar structure waan nii dul maraya si guud deetana casharkii saasaan ku dhamayn doonaa insha allah correct the following sentence what is her name where are you from
I have a large family. I am not from Kenya. This is a photo of my family. This is a photo of my family. أرضي شرفت بدنا دمانتي ورتواني وصامي. Thank you very much. And ما شاء الله أد بدو ما سنتين أرضي شرفت بدنا حمزة ود ما سنتاي. And ما شاء الله بعد قلت لي you are a good teacher أد بدو ما سنتاي حمزة قدر أنت والإسكولية هاي. And وحي حتى واحد برشتها هنا دوالك الفائدة. qof waa bilaadan waa khaldami karaa waana saxtami karaa marka insha Allah ardaydeeda aad iyo aad baad u mahadsantiin. Thank you very much. waxaan xagan u taagnay wax weyn ka dartiina marka do not forget inaad share gareysaan, like gareysaan, comment gareysaan. insha Allah ardayda kalena waxaan ka rajaynayaa inay casharkan wixii ka khaldan ay soo saxaan, talooyinkii aan bixiyana inay qaataan. It is very very important. dhammaan ardayda sharafta badan waxaan iga tagay waa anigoo macallin warsama. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.